garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera ayaa waxa saaka ka soo degay laba professor oo ka socda maxadka horumarinta dimuqraadiyadda ee lagu magacaabo Asian Democracy oo ku yaala wadamada Mareykanka iyo Finland waxaana labadan professor oo lagu kala magacaabo Mrs Lisa Filganis iyo Professor Chuck Terman oo u kala dhashay wadamada Finland iyo Estonia ayaa waxa madaarka magaalada Berbera ku qaabilay Cabdikariin Cismaan Jaamac oo madax ka ah maxadka marka magaciisa la soo gaabiyo la yiraahdo ISI waxaanu warbaahinta u sheegay Cabdikariin Cismaan Jaamac inay labadan professor ee wadanka u yimaadeen ka qaybgalka kulan si wada jir ay u qabsan doonaan maxadka ISI ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa oo isagu madaxda ka yahay iyo maxadka ay labadan mas'uul ka socdaan ee ku yaala wadamada Mareykanka iyo Finland waxaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay socdaalkaasi labada professor iyo waxyaabaha ay u socdaan Cabdikariin Cismaan Jaamac waana kan isagoo arrimahaasi sharax waxaan madax ka ahay institute la yiraahdo Institute for Strategic Initiatives ama loo soo gaabiyo ISI Hargeysa uu yahay maxalladii headquarterkiisu waxaan maanta maaragtay soo casuunay Professor Lisa oo ah maaragtay professor Helsinki University of Economics Innovation Management professor iyo Mr. Jack Trayman oo isagoo general maaragtay counselor of organization called Innovation Democracy oo Lisa ka tahay president waxay imika inoo yimaadeen California oo yahay xafiiskooda headquarterkooda yahay waxaana u yimaadeen inay kala qayb qaataan conference aynu sameyn doono 17 bisha hadii la helayo kan oo Hargeysa ku sameyn doono oo maaragtay magaciisa la yiraahdo strategy and modern leadership ISI waa sidoo magaciisa uu taagan yahay waxa weeyaan waxaan maaragtay ugu talagalnay inuu East Africa ka shaqeeyo oo maaragtay arrimaha istiraatiijiyadda iyo leadership oo maaragtay aan ka caawino dadka organizationada hogaamiya haday kuwa dawliga iyo kuwa maaragtay private kaaba sidoo kale waxa iyaguna dhinacooda ka hadlay socdaalkoodan iyo ka qaybgalka shirweynahan uu sheegay Cabdikariin labada professor ay ka socday maxadka Innovation Democracy waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Good morning. My name is Lisa Värikangas. I am a professor at the Helsinki School of Economics, which is also Aalto University in Finland. And I'm also a co-founder and president of a private group called Innovation Democracy, as I believe Abdiyama explained, supports innovative entrepreneurship and also engages in innovation management and strategy, consulting and executive education. I am here in Somaliland for the second time actually. I came a year ago to the opening of the Institute for Strategic Initiatives, and it is my pleasure to be here again to participate and give a keynote speech at the Leadership Summit this week, but also tell people about a great new book which is published by Abdiyama and Jack Trayman called Lead Like a Lion. This is actually very nice, in my opinion, collection of East African and Somali stories. Jack Trayman. I'm a co-founder of Innovation Democracy. I'm also the honorary consul for Estonia in California. I think my interest in Somaliland is based on several different things. One is the work that Lisa and Sadi Stenfors, another co-founder of Innovation Democracy, have done with respect to management of TV عالمي Somali Channel magaalada Berbera.